بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتك وحرن Somali Technical Solution waxaan tusayaa qof kasta oo practice garanaya waxa loo yaqaano CCNA wuxuu u baahan yahay wax la yiraahdo Packet Tracer amba lab oo ku practice garayo haddii suuragal ahayn inuu haysto hardware wuxuu u baahan yahay inuu isticmaalo Cisco Packet Tracer oo laga soo download gareysto website-kan netacad.com Cisco iskale waa website free si free adiga soo download gareysan adiga ku qoraya https www.netacad.com inta geliso waxa tagaysaa meeshan ay ku qoran tahay login ayaa tagaysaa loginka markaa ku dhufato haddii markaa aanad hore username and password u lahayn waxaad ku dhufanaysaa halkan meesha ay ku qoran tahay sign up kaas aad tagaysaa kadibna formkan ayaad buuxinaysaa haddii aad markaa aad rabin inaad isticmaasho formkan aad buuxiso aanad rabin gmail aad leedahay ayaad ku gelaysaa labada option way ku banaayeen markaad intaas samayso waxaad u baahan tahay inaad tagtid loginka markaad gasho wuxuu ku weydiinayaa emailkaaga soo aniga hadda u jeedin emailkayga kadibna waxaan gelinayaa passwordka aniga iska leeyahay passwordka markaan geliyo waxaan leeyahay login markaan sameeyo pagekan weyn ayaa soo baxaya run ahaantii waa confusekiisa aad u badan laakiin sida ugu dhib yar ayaa tusaya waxaad tagaysiin meeshaas search ay ku qoran tahay calaamadda search waxaad ku qoraysaa Cisco Packet Tracer baad ku qoraysaa intaa markaad ku qorto search baad leedahay waxyaalo fara badan ayaa soo baxaya kolomyada ayaa soo baxaya ta hore dooro Cisco Packet Tracer taas markaad ku dhufato hoos u deg kuwan ayaa ku soo baxaya okay kuwan markay ku soo baxaan waxaad ku dhufataa meesha ku qoran tahay get started with the Cisco Packet Tracer taas markaad ku dhufato wuxuu ku geenayaa link labaad ayuu ku geenayaa oo kii hore ahayn markuu geeyo halkan waxa ku soo baxay meel ku qoran tahay courses amba learn courses amba resume hadda hore u gashay kaas ayaad ku dhufanaysaa kaas markaa ku dhufto page cusub ayaa soo baxay marka module 1 downloading and use Cisco Packet Tracer meesha ku qoran tahay ayaa tagaysaa marka ugu horeysa meesha markaa tagto waad ballaarinaysaa video kala duwan buu leeyahay laakiin waxaad tagaysaa 103 meesha ku qoran taas markaa ku dhufato xagan ayaa tagaysaa dhinaca midigta linkigan markasta maxaa ku qoran netacad.com/resource/lab kaasaad ku dhufanaysaa kaas markaa ku dhufato haddana page kaloo saddexaad oo cusub ayuu kuu furayaa kadibna hoos ayaad u degaysaa hoos markaa u desho amba hoos aad u degto wuxuu ku siinayaa 3 options halkan waxaad uga jeedaa to obtain and install your copy of Cisco Packet Tracer please follow these simple steps downloading version Packet Tracer so ka ugu horeeya waa Mac qofkii Mac haysta ayaa kan isticmaalaya okay so for example anigu Mac waa isticmaalaya kana soo download garanaya click waa siinaysaa kadibna wuxuu ku weydiinayaa su'aashan maan ku download garay haaban leeyahay marka intaas sameeyo adigu haddaad rabtid window isticmaalisa ka hoose window ayaa doonaysaa okay kadibna downloadka ayaa soconaya kadibna installationka ayaad bilaabaysaa si fudud adiga oo isticmaalaya Cisco Packet Tracer website-keega officialka saas ayuu u shaqeeyaa waa very useful wuxuu ku leeyahay launch the Packet Tracer to install program launch Cisco Packet Tracer by selecting appropriate icon ka saxda dooro marka inta samayso downloadinka uu ku dhameeyo ayaa waxaad tagaysaa downloadinki ku socday ayaa tagaysaa kadibna uu ku soo saaraya downloadinki
kadib waxaad bilaabsaa installation. waxaan leeyahay installation ii samee. installation ayuu kuu sameynayaa. waxaan leeyahay open this application. waxaan leeyahay install. su-aashan i weydiinaya waxaan leeyahay accept the license. install. installationka waxaa laga yaabaa inuu waqti qaato kolba speedka computerkaaga oo yahay. waxaan isku soo noqona markuu installationka dhameeyo ayaan isku soo noqonaa. laga yaabaa inuu waqti qaato installationkiisu. okay, installationkii wuu inoo dhameeyey saad u jeedin hadda oo uu dhammaystiray. already installation is finishing. all components is install. so waxaan leenahay continue. dan waxaan leenahay done. u dhameeyey. waa installationkaan soo download gareynay. waan iska xidhanaa isaga. packet tracihii ayaan raadinaynaa. waxaan leenahay searchka waxaan leenahay Cisco packet tracer. waxaad ujeedaa aniga 3 nooc ayaa igu jira. 7.3 waa noocii hore. kan ayaa ku siixay 8.2.2. kan ayaa ugu dambeeyay 9. 9 kaasaan furanaa. 9 ka marka la furo su'aal caynkana ku weydiinaya. you like to run a multiple user application. waxaan leeyahay no. qof kaliya isticmaalaya. aniga kaliya isticmaalaya. kadibna waxaa furmaya Cisco packet tracer oo ku weydiin doona loginkaagii aad ku gashay netcard. so waxaan leeyahay login. haddii aad ka haysan kuu shaqeyn maayo. so waxaan leeyahay login. kadibna loginkaagii already haddaad login ahayd uu ku furmaya. so sidan ayuu ekaaday Cisco packet tracer had ujeedin. halkan hoose waxaa ku qoran network devices. network devices ayaa ku qoran. so hoosta wuxuu ku siinaya router, switch, hub oo beri hore la isticmaali jiray, wireless access point iyo calaamad WAN cloud u taala. okay, next one haddaan ku dhufano wuxuu ku tusayaa all the switches. kan haddaan ku dhufano wuxuu tusayaa all the routers. kan wuxuu ku tusayaa inta hub uu ka hayo. wirelesska inta wireless uu ka hayo ayuu ku tusayaa. firewallka intuu ka hayo ku tusayaa. saasuu ku tusayaa wax walba. qaybtana waa qaybta computerada. in device waa PC, laptop, server. kan ma isticmaalna inta badan. calaamadana waa cableski. harkii la isugu xidhiidhay. so example haddaan soo qaato waxaan leeyahay niyo waxaad ii qaataa router 2911 for example. and switch ii qaad just example 2960. PC ii qaad computer aan kusii xidho. kadibna xadhig ayaa doonaysaa. xadhiga kan ayaad kaligeynaysaa. waad kor qabanaysaa. kadibna markaad kor qabateed ku dullufato xadhka badan ayuu ku doorsiinayaa. kuwa internetka gigabyte internetka iyo gigabyte internet 1 ayaa isku xidhaysaa. xadhigaad mar labaad qaadaysaa. isaga iyo switchkana isaga iyo PC-gana waa isku xidhaysaa. okay, intaa markaad samayso waxay noo bilaami doonaa configurationka. saas ayuu markaas Cisco packet tracer u shaqeeyaa. oo meesha wax lagu practice gareeyo ee labkii ku sameysay simulationkii waa very important inaad wax practice gareyso. aad buu mahadsantihiin. qaybtiisa labaad la socda.